waxaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay hawadii Somaliland iyo Soomaaliya ay la soo wareegtaan la soo wareegi doonto ayadoo on laga wada tashan lagana heshiin arintaasi sida ku xusun heshiisyadii Istanbul 1 iyo Istanbul 2 ee ay dawladaha Soomaaliya iyo Somaliland kala saxeexdeen heshiisyada oo dhinaca Soomaaliya ka socon waayay arintaasi maamulka hawada oo keeni doonta karta khalkhal iyo jaawareed mas'uuliyadeedana dusha ay ka fuuli doonto cidii heshiiska ka baxday oo ah xukuumadda Soomaaliya waxaanu ugu baaqaynaa quruumaha midoobay hay'adda ICAO dawladaha dariska ah iyo cid walba oo daneynaysa nabadgelyada iyo hab u socodka duulimaadyada mandaqada waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaan marnaba Somaliland ogolaan doonin in hawadeeda meel kale laga maamulo عبد محمد غضب waxaan jecelahay inaan weydiiyo arrintan ka hadashay maamulka hawada Somaliland iyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya xaflad ayaa imka socota ay ku sheegayso inay hawadii si toos ah u wareegayso qalab ahaan iyo farsamo ahaan guud ahaan laga maamuli doono hawadii la isku jiray Somaliland iyo Soomaaliya magaalada Muqdisho haddii ay kaas dhacdo oo ay arrintaasi ku guuleystaan in ay xafladinayaan idinka maxay idin gudbo horta sidii aan warbixintaba ku sheegay haddii la heshiisyo hore jiray Istanbul 1 Istanbul 2 marka waxaad wada tashi bay wax waliba ku fiican yihiin waana dhab weyn in xafladeynayaan oo xaq bay u leeyihiin qudhowdu ilaa waxa laga maamulayay Nairobi iyo meel kale laakiin saqaladka tay ku sameeyeen waxa weeyaan innaka qudheena qalab baa laynoo keenayaa la filaayo ilaa iyo December ay diinkeeda inuu dhamaado oo innakuna ay ku helishiin marka diyaaraduhuna meel qura ma mari karayaan oo 100 wadan bay ka gudbayaan marka qawaaniintooda in la dhameeyo oo lagu socdo way diyaaraddu intay hawada xagga Soomaaliya ka timaado un break qaadan mayso ilaa Somaliland bidul maraysa marka wixii lagu heshiiyay ayay ka baxeen inkastoo hubo inaan wali qalabkoodu dhameeyeen bilaabeen laakiin se Ilaahay idinka waxaanu rajaynaynaa in ay ku soo noqdaan saaxadda wada hadalka oo qoladan ay ka oobaan noo dhaxaysa marka waa hadii laakiin soo afduub dhaco waxa imanaya khalkhal iyo jahwareer xagii hawada Somaliland hawadeedana ayada iska leh dusheeda ayada iska leh maamulkeeda ayada iska leh ayada fasaxi karta ki dusheeda maraya iyo ki laakiin se mar walba aanu qaamo furan baan ku soo dhaweynaya hadii wada hadal iyo sidii hore iyo sawaabkii lagu soo noqonayo laakiin se taate waanu cadaynaynaa qaladka dhacay oo wixii lagu heshiiyay aha laakiin hadii ay ku guuleystaan way talaabada ay geliyaan waxayna helin waa isla su'aashii hore adigu soo weydiisay marka jawaabteedu hore kugu filan way baaraya Cabdulqaadir Balayo ku soo lahayn TV maanta xiriirjinta qaladkaada Sibiiliya waxa sheegtay Soomaaliland waxa la ictiraafay hawada lagu wareejiyay marka hadii Soomaaliya la ictiraafsan yahay oo hawadii lagu wareejiyo ka Soomaaliland ahaan hadalkiidii la wuxuu noqonayaa maadaama dalka wuxuu noqonayaa hawadan soo dusheenii ma amba halayna ictiraafo amba yalayna ictiraafin nidaamkii ay ka hawanimada inaga dhaxeeya laakiin soo horta hawadaadii adiga iska leh dhulkaageedan aad iska leh laakiin sahabu socodkii diyaaradaha ya ayaa marka kulay arbitration oo sameeyay ICAO way noo dhaxaysa oo qolada ICAO diyaaradaha Montreal way noo dhaxaysa oo heshiisyadooda oo dhan ayadana la ogeed markii aan saxaxanay
وهذا كل بيجي وسير في هورد ولسه هو بيسواه يطلق ومي بيجي سي صوماليا وهذا في عبد السعودي محامرة كهلاي يصدق تقول يقول شيء هودي أو يكبر حول هذا يسمى الله إلى السعودية ما جوابتها سؤال شيء كده ويدين نقطة أنا خاطر المسؤولية دي بعض الساعة تدورون له السوق ما كان يعرف هاي ولا قش في سعره ما دام عيدوا هذا اللي يقول ده يشيل في تلاقي وقته ويصير كان ولسه هو ده فرق وكل شيء مال في عام مرة تروح السعودية يا محاكي اللي بيقول شيء سياسي مال في عام مرة قلت واحد ينقر صحيح أنا واحد كلا هذا اسطنبول 1 يا اسطنبول 2 مع انك سونيgan kulayl waraaqi weyn hor yaalaan raadiyadu way keenayaan oo ma garanaysaa ilaa December ayay dhamaanaysaa marka way soo bixi doontaa bal waxaan ku kalifay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.